أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أحبابي الكرام meel kastoo naga daawanaysaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib insha allahu tacaala kelmadeena yar ee kooban ee caawada ah insha allahu tacaala waxaan kusoo qaadan doonaa qiso ka mida qisooyinkii waaweynaa ee dhacay qisadani laga yaabo inaad in badan aragteen luqado fara badan oo kala duwan lagu kala tarjumay waa qiso aada u shaacday insha allahu tacaala ugu horeyn saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha wuxuu ka mid yahay acmaasha qabuulka ah ee aan la soo radinin saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam fadaa'il fara badan buu leeyahay qofkii kurbeysana saliga nabiga akhriya aadba kurbeysa baa la fidaya kii deymeysan ilaah baa deynta ka gudayo fadaa'il fara badan oonan caaw meesha kusoo koobi karin baa ku sugnaaday fadliga saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam qisadani marka waxay dhacday hadda ka hor ninbaa waxaa lagu lahay deyn aada u fara badan ilaa 500 oo diinaar gaaraysa ninkii dadkii deyntii ku lahaabaa aada ugu batay maalin walba weydiiskeedii baa batay markii dambe nin ganacsadaa u tagay wuxuu yiri walaalo bal deyntan baa liigu dhegan yahay iga gud anaa marka lacagtaasi ku siinayo deyntii marka waxaa dhacday 500 shii oo ka qaatay diinaar deyntiina uu iska kala guday muddeyna qabsaday inuu lacagtii ku bixiyo muddadii markii la gaaray ninkiina xaalkiisi aada buu usii xumaaday lacagtiina waa ku cuslaatay dabeetana ninkii ganacsadaha ninkani waa u waday qaaliga u geey dacwadiibuu u sheegtay wuxuu yihi ninkani lacag 500 oo diinaar buu iga deynsaday waqtigeediina waa la gaaray lacagtiina ima siinayo ninkan waxaa rabaa in lacagtii laga qaado qaaligii baa marka gartii markuu gal wuxuu amray in ninkan xabsi lagu xukumo ilaa uu deyntaas iska bixiyo baa xabsi lagu xukumay dabeetana ninkii wuxuu yihi wareedhe qaaligii bal ilaa beri waayo ka beriyo iyo dul qaado xaas baan kasoo tegay caruur baan kasoo tegay xaalkaygana meelu ku sugaya ma ogo bal aan u tago arrintan u sheegaan uga waramo waana soo noqonayaa ugu yiri markaasuu qaaligii wuxuu dhahay yaa damaanad qaadayo inaad soo noqonaysid nin inta xabsi lagu xukumay ee baxsaday ma soo noqonayo buu yiri ciddii ku damaanad qaadi lahayd soo sheeg kadib ninkii wuxuu ku jawaabay hadal cajiib ah oo qalbiga qaaliga gelgelay wuxuu ku yiri qaaliga waxaa damiiniga ah yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii aan imaan waayo kasoo bixi waayane fashad wuxuu yiri anii lastu min ummati muxamadin sala allahu calayhi wasalam kama mid beri baan yani ummadda nabiga calayhi salaam kuma jiri ee arrintaas bacaawa damaanadaas igu qaado igu aqbal qaaligii wuxuu yiri marxaba nabiga wuxuu yiri calayhi salaam ku dhagtay ilaa baan ku kaadinayaa ninkii oo soo baxay gurigiisii buu imaaday xaaskiisii buu arrinta u sheegay arrintan baa igu dhacday markaas waxay ku tiri sidee lagu soo daayay nin xabsi lagu xukumay haddana caawada guriga imaanaysa waxa miyaa soo dhumatay maya qaaligii baa i weydiiyey wuxuu yiri yaa damiinka ah ana nabigaan sheegay calayhi salaam damiiniga ah اللهم صل وسلم وبارك عليه xaaskii wanaagsan waxay tiri maadaama lagugu soo daayay damaanada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo sidaas aad ku soo baxsatay
cawada bal aan badina saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay waxaa rajeynaa inuu faraj noogu furo. kadib saligii bay bilaabeen nabiga calayhi salaatu wasalaam. markay saligii in badan wadeen way lulmoodeen, hurdaa qabatay, waa jifteen. ninkiibaa marka waxaa u imaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam baa manaam kugu imaaday. ru'yada nabigana waa xaq, in manaam lagu arki karane axaadiis fara badan haddeertaa muranka taagnayn baa ku soo aroortay. nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ninkii wuxuu ku yidhi waagu markuu kuu bari waxaad u tagtaa ninka waaliga magaalada xukuma u tag, waxaad ku tiraahdaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku amrayaa inaad lacagtaas deynta ligule iga bixisid. dabeetana wuxuu ku dhahayaa yacni maxaa caddeen ah? waxaad ku tiraahdaa maalin kaste waxaad ku sallisaa nabiga calayhi salaatu wasalaam tiro 1,000 ah, yacni 1,000 jeer baa kuu rukumanoo wardi kuu ah. saas ku dhac calaamada kuwaad. tan labaad hadduu ku weydiiyana waxaad ku dhahdaa tiradii xalay waad qaladoo 999 baa aqrisoo 1,000 maadan buuxin, laakiin ayadoo buuxday bayna soo gaartay. waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam salliga ayaan acmaasha aa sameynoo dhan waa loo bandhigayaa. nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam acmaashiina baa liisoo bandhigayaa. yacni muxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam xayaatii khayru lakum wa mamaatii khayru lakum, nolosheedana khayr bay idin tahay, geerideedana khayr bay idin tahay. markaas baa la yihi nabiga ilaahayow sidee geeridaadii khayr noogu noqonaysaa? ilaa markaad nooshahay oo aad noo waxyigiibaa kugu soo degayo, khayraadkii baan kaa baranaynaa, khayr yacni waxaa tahay midkeeni waxna amray waxna naga reebaye oo khayrkao dhan baa noogu soo degaye, haddaad dhimatid see khayr u tahay? nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam acmaashiina baa liisoo bandhigayaa. haddaan ku arko khayr xamadtullaaha, ilaahay baa u mahad celinaya subxaanahu wa tacaala. haddaan ku arko waxaan khayr ahaynoo shar ahne ilaahay baan dambi dhaaf idin weydiinayaa buu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam. marka acmaashaan dhan aan sameynayn nabiga asaa loo bandhigaa. marka dabeetana ninkii wuxuu yidhi arrintaani sameeyo, ninka u tag waaliga waxa ku tiraahdaa nabigu wuxuu ku amrayaa inaa aniga deentayga gudid. marxabuu dhahay, waagii baa baryey. nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii waagi markuu baryay wuu baxay. waaligii u tag wuxuu ku yidhi warheedhe aniga nabigan xalay riyo ku arkay, koow wuxuuna ku amrayaa inaa aniga deentayga guddo. ninkii marxabuu dhahay, haye laakiin maxaad caddaynaysataa? wuxuu yidhi 2 calaamadood baan haystaa oo caddayn ii ah. waa midda koowaade nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaad ku sallin jirta mar walba 1,000 baa kuu go-need, mana aada ka tegi jirin. hase yeeshee tiradii xalayne halaad kaa dhineedoo way kaa qaldantay. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu kugu bishaareeyey ayadoo dhammaystiran inay gaartay. marka labadaas calaamadood baan wataa. markaas ninkii aada buu ooyey bishaaradii nabiga calayhi salaam waa uu ku farxay. dabeetana baytulmaalka wuxuu uga amray 500 dinar in ninkaa la siiyo. baytulmaalka waa xoolihii muslimiinta meesha ku jiraan baa la yiri ninkan deemaysa 500 ha laga siiyo. dabeetana 2,500 wuxuu u raaciyey oo ah barakadii saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo bishaaradana u keenay. ninkii markaasoo 2,500 yacni 3,000 lacag dhan, awalna 500 baa lagu lahay, haddeertaana 3,000 oo diinaar buu wataa, buu ninkii soo baxay. qaaligiiba u imaaday. haddii uu yimidba meeshii qaaligii imaadaba qaaligiiba sugayay ninka. qornii maxaa kuugu dhacay? waanba ku sugayay, maxaa kuugu dhacay? markaasuu wuxuu yidhi waa kanaa. wuxuu ku yidhi qaaligii warniyow deentaadii 500 ee lagugu lahay ee aan rabi inaan kuu xiro anigii baa kaa gudayo. maxaa yeelay xalay baa nabiga calayhi salaatu wasalaam ku riyooday, wuxuuna igu yidhi haddaad deentaad guddo adna waa kaa gudaynaa buu yidhi. marka anaa 500 waa watanba. ninkii intuusan hadlin ninkii ganacsadihii baa imaaday.
markaas wuxuu yiri qaaliyow ninkani deyntii aan ku leeyahay waan cafiyey maxaa yeelay fadligiisa iyo wardigiisa saliga nabi calayhi salaatu wasalaam baa nabiga xalay ku arkay calayhi salaatu wasalaam wuxuuna igu yiri haddaad cafisid annagana ku cafinaynaa aniga marka deentiidina waan cafiyey ninkan deentiisiina waan cafiyey 500 hore buu siiyey dabeetana marka 2 ninkii hore watay iyo meeshaan oo 1,000 ah waa meeqa isku noqotay 4,000 buu ula tagay xaaskiisa asugoo wato faraxsan farxadda wajigiisa ka muuqata la yaabayo xaaskiisii markuu u tagay buu lacagtiina u sheegay iyo akhbaartiina la gudbiyey intaasoo dhan ka badanna waxay ku jirtaa fadliga nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waxaa loo baahan yahay walaalkay muslimkii walaashay muslimadda ahay tii nabateeda waxaan u dardaarmayaa inaad ka yeelataan wardi saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam way umuurahaadii oo dhan ba ilaah kugu saqiraya adiga bay faa'iido kugu tahay adduun iyo aakhiraba adiga bay faa'iido kugu tahay yacni haddaad wax kala gari weyso bal maalintii 100 ku bilow haddaad ka badin karta 300 ka dhigo maasha allah culamo badan baa ka hadashay in 3 yacni adoo tusbaxaad magaalada maraysa akhrin kartaa adoo gaari saaran ba akhrin kartaa adoo gurigaada joogaad akhrin kartaa yacni meelaad ku akhriso ugeemay 300 oo saliga calayhi salaatu wasalaam fadli fara badanna way ku leedahay marka haddii ilaahay kuu sii fududeeyana ilaa 500 gaarsii 1,000 gaarsii yacni waad xadgadan kartaa culimada badankood qaarkood baa waxay akhrin jireen sida imaam Suyuudi 50,000 oo saliga buu akhrin jiray nabi calayhi salaatu wasalaam 50,000 buu akhrin jiray imaam Shacraani waa kamid 50,000 buu akhrin jiray imaam Suyuudi raximahullah Allah naxariiste 60 buu ku geeriyooday 60 buu ku geeriyooday 700 oo kitaabna oo qoray 50,000 akhrin jiray calayhi salaatu wasalaam saligiis imaam Shacraani sidoo kale in marka waxaa soo dhan waa fadligu leeyahay saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam acmaasha aan bal soo celin maxaa kamid ah saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam marka walaalayaalow waxaan idin dardaarmayaa naftiinaba inaanu wardi ka yeelano saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam inaanan hilmaamin ceeb bay nagu tahay in waaga kuu baryo gabalkan ku dhacdo nabiga ku sallallahu calayhi salaatu wasalaam qof mu'min baa tahay nabiga jecel calayhi salaatu wasalaam haddaad lahaydna laazim haddaad lahaydna had jeertaan fariintan ay kusoo gaarto bilaaw hada wabillahi tawfiiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.